وقولي المحل اللي وانا مسترين وما كان ما دوايتي لايك ماذا walaalayaal gurigan aan joogno saaka waa gurigii loo dhisayay caruurta agoonta iyo rajada ah ee ilmo kaysa samatar baxnaan markii isugu keen dambeysay waxay ahayd iyadoo wajahada hore iyo cagdhiga albaabada iyo ay ka maqan yihiin insha Allah cadeynta iyo rinjiga iyo istamarka iyo walaalayaal waa aragtaan gurigii hadda saddexdii qol geedkoodii barkadii suuligii kijadii intaas way dhamaatay waa la dhammaystiray saaka waxaan isugu nimi insha Allah inaan gurigii ku wareejiyo caruurtii agoontii rajada ahayd cidii mas'uulka ka ahayd haddii Allah idmo waxaa ka dhiman walaalayaal guriga sida arki doontaan wixii la dhigi lahaa ee lagu seexan lahaa iyo wixii wax lagu cuni lahaa hadday barkad tahay iyo hadday suuli tahay iyo hadday qolal saddexdii qol iyo kishadii tahay waa dhammaystiran yahay qolkan oo afraado kii meherada mustaqbalka looga dhigi lahaana 2 mitir iyo 20 ku jooga insha Allah mitirka oo hadhayna waqtiga ay wax helaan bay saaran doonaan haddii Allah idmo waxaa kale oo uu baahan yahay guriga korontada way ku jirtaa dabku waa ku jira laakiin wuxuu baahan yahay in inta la qaado xarig yar wire la soo qaado lagu xidho oo la geliyo gobolka Alberta magaalada Edmonton in lacagtii ay soo direen ugu dambeysay $100 ahayd inaan ku dhamaystirnay gurigii insha Allah waa daawan doontaan maalintii isugu keen dambeysana ballankeen waxa isagoo dhammaystiran oo aad ku farxi doontaan ba daawan doontaan insha Allah wuxuu guriga u noqday waa guda ballaadhay lacag 400 baa raacday lacagtaas soo dirteen oo hadda lagu leeyahay laakiin uu dhammaystirmay guriga waa aragtaan walaalayaal insha Allah waana daawan doontaan ilaahay waxaan idin weydiinayaa meesha ka soo saarteen idinka iyo dadkii kale ka qayb qaatay wax ka khayroon ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu idinku bedelo haddana gacantiina waa u baahan yihiin cid kasta oo muxsiniin oo caawinaysa walaalihii hore ka qayb qaatay ama Australia ha joogeen ama Canada ha joogeen ama North America ha joogeen ama Europe ha joogeen ilaahay khayr kaga abaalmariyo aamin waxaan idin ka codsanaynaa walaalayaalow inta hadhay ilaahay baa waxay cunaan ilaahay baa kafaala qaaday oo waayimayaan laakiin in loo dhigo wixii ay ku seexan lahaayeen iyo wixii ay wax ku cuni lahaayeen intaana haddii la awoodi karo loo raaciyo si caruurta loo soo xareeyo oo waxbarasho loogu daro cidii qof waxbarasho ka bixinaysa scholarship garaynaysaana dee waa u furan tahay insha Allah marka ilaahay khayr ha idin siiyo gabdhihii Edmonton waxaan u sheegayaa lacagtoodii inaan halkaa u geliyay siday ugu talagaleen inay u gashay gudiya banaanba waa daawan doontaan gurigu waa dhammaystiran yahay hadda in la goglo oo la gala on baa u hadhay barkadii waa u diyaarsan tahay suuligii waa u diyaarsan yahay saddexda qol ee kishadii waa diyaarsan yihiin daaradii waa dhammaystiran tahay waxa uu u dhiman in la gaaruurtii la keeno iyo in wixii ay ku saxan lahaayeen iyo waxay wax ku cuni lahaayeen loo dhigo marka cid kasta oo daranaysa arinta oo muxsiniina oo deegaanka u dhalatay iyo dadka kale khayrka jecelba waxaan u sheegaynaa in caruurtii insha Allah la keeni doono waxaan ka codsanaynaa waxa ay tari karaan ku saacidi karaan ku saacidaan Usmaan Baxnaan iyo Cabdullaahi Xaaji Jaamac Yuusuf runtii iyaguna kelmadooda ay oran doonaan waa mahadsantihiin